qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka oo la wareegay deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug. beesha caalamka oo war ka soo saartay shirkii Muqdisho iyo jadwalka doorashada baaqna u dirtay dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya. guddiga doorashooyinka maamulaya ee Puntland oo doortay guddoon cusub. intaas waxay hayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bogan doontaan tabinteena tooska wararkii ugu dambeeyay. waxaynu idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo aad subscribe-ka aad noo saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka, warbixinada, muuqaalada sida joogtadana halkan aynu ugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee xogaha wararkeena hagaaga aynu ku bilaawno. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa la wareegay deegaanka Bacadweyne. wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin dheeraada waxay ka bixisay howlgallo ballaaran oo si wada jir ah ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulkaasi ay uga sameeyeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ay la wareegeen deegaanada Bacadweyne, Qaycad, Sabeena iyo Gowrac oo dhaca koonfurta gobolka Mudug. sidoo kale wasaaraddu waxa ay shaaca ka qaaday in deegaanadaasi ay isaga baxeen ururka Al-Shabaab oo horey ugu sugnaa halkaas sida hadalka uu dhignaa. ciidamada qaranka iyo kuwa amniga Galmudug oo howlgal qorsheysan qaaday saaka ayaa gacanta ku dhigay magaalada Bacadweyne iyo tuulooyin hoos yimaada magaaladaas oo ay Al-Shabaab isaga baxeen deegaanadaasi oo ay ku sugnaayeen, waxaana si buuxda gacanta ugu dhigay ciidamada ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda amniga Galmudug. dowlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale xustay inay si laba jibaari doonaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. wararka ayaa sidoo kale waxa intaa ay ku dirayaan in dagaal kooban uu ka dhacay dhinaca deegaanka Bacadweyne waxaana kadib dib u gurtay dagaalyahanadii shabaabka ka tirsanaa. muddooyinkii dambe ayaa waxaa ciidamada hubanta ay sare u qaadeen howlgallada ay ka wadaan gobolada dhexe, gaar ahaan meelaha ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab. waxaana deegaanadan oo ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Galmudug si weyn deegaanadaas ugu soo dhaweeyay kumanaan dadweyne ah oo si weyn ugu riyaaqay in deegaanadaas ay si rasmi ah ay gacanta ugu dhigaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta maamulka Galmudug. Al-Shabaab ayaa dhowaan weerar ay ka soo qorsheeyeen qaybo ka mid ah gobolka Mudug waxa ay ku qaadeen deegaano dhowr ah oo ku yaala Galmudug, waxaase fashilmay isku day ay doonayeen in ay kula wareegaan deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Mudug oo ay ka mid tahay deegaanka Wasil. beesha caalamka ayaa war ka soo saartay shirkii Muqdisho iyo jadwalka doorashada ee la isku raacay. war-saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen xubnaha beesha caalamka ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay shirkii dhowaan ay yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaran ee looga arinsanayay hanaanka doorashooyinka iyo dardargelinta heshiiskii hore looga gaaray ama lagu gaaray magaalada Muqdisho. wakiilada beesha caalamka ayaa waxaa dhinacyada ay ugu baaqeen in ay ugu soo baxaan heshiiska si aan dib u dhac lahayn ay u hirgeliyaan si hore loogu sii socdo, islamarkaana ay dalka guud ahaan loogu dhaqaaqo doorasho ku qotonta wadar ogol oo ay doorasho ku qotonta wadar ogol oo ku mudaysan xilliga lagu heshiiyey. saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxay soo dhaweynayaan shirkii guusha ku soo dhamaaday ee golaha wadatashiga qaran ee dhacay 29kii Juun. waxa ayna ku bogaadinayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedyada doodihii wax ku oolka ahaa ee ay ka yeesheen jawigii taagnaa ee shirka oo ay qayb ka tahay xiriirka lala sameynayo saamileyda sida golaha midowga musharaxiinta ayaa aasaas u ah sii socodka horumarka xagga doorashada ayaa lagu yiri qoraalka. waxaan hoosta ka xariiqaynaa in golaha wadatashiga qaran ay go'aan muhiim ah ka gaareen jadwalka doorashada iyo doorka kooxaha ka taageera farsamada doorashada iyo ballaarinta lagu sameeyay si loogu daro wakiilada dowlad goboleedyada. waxaan soo dhaweynaynaa go'aanka kala bar hoos loogu dhimay qarashka isdiiwaangelinta musharaxiinta haweenka ah
waxaan rajaynaynaa in la qaado tallaabooyin kale si loo xoojiyo qoondada 30% ee haweenka lagu heshiiyey. sidoo kale waxay saaxiibada beesha caalamka u soo jeedinayaan madaxda iyo hay'adaha ku shaqada leh arrimaha doorashada inay si joogto ah u yeeshaan wada xaajood iyo wada shaqeyn wax ku ool ah si loo xaliyo caqabad kasta oo la soo gudboonaata hanaanka doorashada. waxaan ku qanacsanahay in hanaanka doorasho degdeg ah oo nabadoon oo hufan ay Soomaaliya ka caawin doonto ku laabashada dhabaha xasiloonida iyo barwaaqada. saaxiibada caalamka waxa ay diyaar u yihiin inay taageeraan Soomaaliya. qoraalkan waxaa si wadajir ah u soo saaray dowladaha iyo ururada kale ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya magaciisa loo soo gaabiyo AMISOM, Belgium, Canada, Shiinaha, Denmark, Djibouti, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, urur goboleedka Jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Qatar, Ruushka, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turkiga, boqortooyada midowday ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay oo qoraalkan si wadajir ah ugu saxiixnaa. dhinaca kalena guddiga doorashada ee maamulaya doorashada deegaanada maamulka Puntland ayaa maanta waxa ay doorteen guddoon cusub. magaalada Muqdisho waxaa maanta oo Talaado ah kulan ku yeeshay xubnaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Puntland iyaga oo maanta kulankooda ku doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen. xubnaha guddigan oo ka kooban 11 xubnood ayaa waxaa xilka gudoomiyaha isu soo taagay Cabdikariin Muuse Maxamed, waxaana aysan jirin cid la tartantay oo ku guuleysatay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Puntland. waxa uu helay codad gaaraya 11 cod. xilka jagada gudoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa waxaa soo sharaxay isla markaana shaaciyay in ay daneynayaan ku guuleysiga xilkaasi Caynaasho Yuusuf Xuseen. waxa aysan jirin musharax kale oo kula tartamay jagadan. waxa uu helay 11 cod isagoo oo noqonaya gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka maamulka Puntland. horey waxaa guddoonka u doortay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulada Koonfur Galbeed, Galmudug, waxaana la filayaa in sidoo kale ay dhacdo doorashada guddoonka guddiyada doorashooyinka Hirshabelle iyo Jubbaland. guddiga doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi iyo kuwa beelaha banaadiriga ah oo iyana qorshe uu yahay in magaalada Muqdisho ay ka dhacaan. saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida channelkeena ka daawaneyseen waa inaga inta aad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xigeenteenu dib u kulmi doono. waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabaadiino.